الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور علي هورتا وحن لا اطمئن وابشر اسكن بشارة يسوع قلبنا يقودكو إذا كل ما ترتمي سؤالكم فرد هذا الدعدة ماركا مجالس نواب بحداء طبعا كان لنا كوجر وديع كرتا ماركا اسكت جنو إن شاء الله. waxaad weydiisay arintaas runtii waqtiga bitaxdiid sida hadda dadka isbitaalada ku dhashay ama meelaha taariikhdeeda la yaqaan ku dhashay anuu kuma dhalan waxaan ku dhashay meel baadiye ah geed hoostiis ah aan isbitaal ahayn sida Soomaalidu hore u baday weliba iyadoo safar la yahay oo musaafir la yahay reerku naqraac yahay naqawaat qaan Soomaa roob markuu doo meeshaas ugu hayaamayo iyadoo reerku hayaan yahay oo naqraac yahay ayaa hooyo Allah u naxariistay iyadoo awr saaran sida la ii sheegay awrkiina waa soo gaaray magaciisa gaaridi baa la dhihi jiray ayaa isagoo la intifaacsado baan ganacsaday marka awrkaasay saarnayd hooyo iyadoo caloosha igu sidaa raxmatullaahi tacaala calayha geedka hoostiisa lagu leexiyay iyadoo islaami halkaas ku dhalatay baa laygu yiri geedkiina waa lay tusay horta taariikhdu bitaxdiid garanaysa ma jirto laakiin dadkii magaalada joogay oo maaragtay iyagu waxa taariikhaha la socday ama bilaha la socday sida waalidka Allah u naxariisto iyo ninkii walaalkay iga weynaa oo curadka ahaa Ahmed Idris Liij oo markaa cadan joogay ayaa waxay ii sheegeen inay ku aadanayd 1958 bisha bitaxdiid ma garanayno laakiin waqtiga hadii laga qiyaaso Sheekh Cabdirashiid waxaan ka weynahay ilaa 6-7 sano meelahaas alxamdulillaah rabbil caalamiin Sheekh Cali isaguna wiil yar way wuxuu ku soo dhawaanayaa kuwa aan dhalay ku soo dhawaanayaa تكبير تاسنا معها تكبير شاعري وحسود لي شداء وحسوسية إن يرد عنك كسي الضراء كسي فرحيه بريق مكة عيال ميادن حسوسا مركان إيمان جري سديتنات كي أو ويلك عبد شكور بان ميلود فريسين جري إيمان حسوس ما حسوس تنقول كا إيمان جري تقول هذا هاي حسوسا كرتير أنا ويل كان قال عياري جري ما شاء الله فريسين على كل حال لشواتاس وقت قاس بيقيا كو حددت تقريبا إلهي بس قرنية ماشي نقول شيء ودقمة قندلاء بادية هذا وقبل كباري صوماليا أبي الله نحرسته يسوي يقدونا ورجع بعضك قاركيس واسمه مقالان لكن هذا نفسي جياه هدي أي معركتي وحكي جرين مقدية أبي يسوي مهاجرة ودول كاسي من صوماليا وحنكي من دلك إريتريا يوكيمي وحسود دقي دول كاس بريقة وكبروا قبي حوالي بدن بومارة جناح صدوها مقالوين كاس ودن بوساسو يو قندلا يعلولا يو حابو يجسلي يدول كحيبتا صدن بودقي وتكام مقولها الحمد لله مركا يسوي هالكاس يوكيمي لكن أنا صومالي بانا شقكم إليه afahan iyo dhaqan ahaan iyo deegaan ahaan intaba iyo shucuur ahaan waxaan ahay Soomaali magaaladaas ku dhashay alxamdulillaah iyadoo ku barbaaray dugsiga quraanka sida ardayda yaani Soomaalida dhaqankeedu ahaa aan ku galay kadibna iskuulka waraantiisii ku dhigtay kadibna xamar baan muu wareegay magaalada Muqdisho iskuulka halkaas aan ka galay waxyaalaha igu tajribo fiicnayd markii aan dugsiga dhexe dhiganayay waxa kamid ahayd ololihii darmiga oo aan ka qayb galay 1974 taasoo aan ka qaatay duruusta ugu waaweyn haddaan ku sii hormarinaya oo ah jacaylka dhulka Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada iyo barashada dhulka Soomaaliyeed waxa la yigay aniga oo qandalo ku dhashay oo bari ka imi oo Muqdisho markaa ku dhaqnaa baadiyaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe leegay arday 16 jirana waan ahaa halkaas yaani dhaqankii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed isdhexgalkeedii wax badan aan ka faa'iideystay aad kadibna
waxaan u baxay dalka dibaddiisa 1975 anu markii dadku safarta bannaanka aadeen qurbaha waa ka horreeyey 25kii cadan baan tegey xoogaa baan iskuulka ka sii dhigtay kadibna 77 bishii labaad waxaan galay dalka Sacuudiga ilaahay amarkiis iyo cajaa'ibta iyo qudrada waxaan ku socday Kuwait risq raadis baan ahaa nin dhalinyaro ah oo 19 jir ah laakiin 3 maalmood baan waxaan qaatay oo ah transit dalka Sacuudiga markii la ii diiday cimri waxaas kadibna 3 maalmood waxay noqotay 43 sano ilaa hadda inaan Maka deganahay ilaahay fadligiisa meesha qofku marka wax loogu qorayo ama cimrigiisu uu noqonayo ama dadkiisu ay noqonayso ma oga meeshii dhulka ilaahay ugu barakaysnay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala deegaankayga ka dhigay iyadan maaragtay inta cimrigayga ilaa hadda ilaa waqtigaas 19 jirka aan ahaa aan ka safro aan meelaha aado Yurub aado Mareykan aado Aasiya aado Soomaaliya aado in kale aado laakiin deegaankayga rasmiga ahay wuxuu ahaa ilaa haddana yahay magaalada barakaysan ee Makka al-Mukarrama iyada ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuunka iyo dacwada iyo diinta jacaylkeeda ilaahay ugu siiyey ma dhigan anigu sida saaxiibaday waqtigaas yimi waxay galeen jaamacadda Makka iyo jaamacadda Madiina anigu labada jaamacadood midna ma gelin ilaahayna ima qadarin laakiin waxaan isleeyahay waa ka sii fiicnayd baan helay oo ah inaan culimada hoos fariisto oo xarameynka labada masjidba aan culimadeeda wax ka barto masaajidda kaleeto culimadii casrigan soo martay muslimiinta ee ducaadii ugu waaweyneyd aan ilaahay wuxuu ii qadaray inaan hoos fariisto oo aan wax ka akhristo muddana aan la noolaado alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan ku fikri jiray inaan iska noqdo dacya waqtigaas aan 20 jirka ahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ii xaqiijiyey qur-aanka sidii sheekh cabdirashiid yaraantii kuma aanan xifdin waa dul maray oo waa bartay laakiin ma aanan xifdin qur-aanka waxaan xifdiyey aniga weyn oo caruur leh oo reer leh taasna waxay daliil u tahay in qofku haddii ay ka go'an tahay sidii sheekhu haddaay uu yidhi diyaar ma u nahay inaynu qur-aanka xifdinno haddii uu qofka niyad ka tahay diyaarna uu yahay waa xifdin karaa da' kasta uu yahay waxaa xalqadda xaramka markii aan sheekha ku dul akhrin jiray ama dhiganaya xifdiga nala dhigan jiray nin aniga markaa iga weynaa 70 jir oo Bakistaani ah oo dalka Bakistan wuuna xifdiyey qur-aanka 5 sano kadib wuu dhameeyey marka waqtiga hosta waa xifdin kartaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin intii ka dambeysay hadee shaqada adduunka oo dee meeshan wadalkan ka shaqaysan jiray waxyaalo kala duwan oo shirkadaha iyo waxaas laakiin 30 sano ugu dambeysay dacwada iyo arrimaheedaas uun baan u badnaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu sugo dariiqaas ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu khaatumada iigu hagaajiyo duruusta يعني نولشا سيان وركا كوغوسو غابيو درسيga koowaad oo noloshaas يعني 60 sano hadda kor madaxa kala baxday aan isleeyahay waa qaadan kartaa dhalinyaraduna ay ka faa'iideysan karaan waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xirnaantiisa iyo kitaabka qur'aanka kariimka jacaylkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kuugu furaya jamiic alabwaab abwaab kasta ama albaab kasta oo kaa xiran marka nicmada ugu horeysa ama darsiga ugu horeeya isleeyahay nolosha aan laga dhergi karin macaankeeda waa kitaabka qur'aanka وحي الكتاب إلهي سبحانه وتعالى تسوى درسي ويه درسي اللباد وحوي قفك هدي وليه همت عالية وميل إنه قارقه أما هدف يوجده وليه وباهي همت داسو إني حنبارتو إيضا أنه قنيسة labada baal
أنا أستمركي مثلا القرآن كان حفظني معلنك صلاة الفجر ساعات كهر بنقولي سوق تجري كتبنا وسوق هذه جري معلنك وعنقول تكنجرني حرم كشريف كعبضة كتبنا درسي أيام وقبل حجري كتبنا قرقيس أيام كل علين جري كتبنا أنا ومركز عن شقدي هذه جري مركز الله وسع كهر وين ديار قروبة صلاة الفجر كهر ساعات ويران كهر سيانو لبستو تغو ويسقو سو قادو وانو جيو هدانا وعليو هدانا درس كسو هدانا سو نوضو انتاس وحا يحنباري جعيلك marka hadii aad himadeeda hayso waxba kuguma adkaanayaan waxba sacab kuguma noqonayaan ha culaysan taasna waa qodobka saddexaad oo aan ku darayo waxa weeye yani safartan iyo dacwadan badan duruus badan bay ku siisaa laakiin hal darsi ayaan isleeyahay waad la wadaagi kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhlaaska nagu irsaaqo ducada iyo dhalinyarada dadka dacwada diinta ilaahay doonaya ikhlaaska ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaaga inuu daacadnimo ka ogaado cid kaloo aad la wadaagi karto ama kula wadaagi kartaa ma jirto cid kaloo aad ugu mujaamalayn karaysaana ma jirto laakiin waa midda najaaxaaga ama guushaada koowaad keeni karta cid inaadan ku mujaamalayn in idaadan tusin ilaahay qalbigaaga ha ka daalacdo waxa runtu tahay kuna ula imow waad ku najaxaysaa dacwadaada ama diintaada ama waxii aad wado nooc kastaba ha noqdo midda labaadna waxa weeye dacwadaas waxaad wax ka keeni kartaa inaad naftaada siiso kulligeed say u dhan tahay waa iyada ka iibiso waxaa laga yaabaa dhinacyo badan oo kaleeto inay kaaga tagaan waa sax hadda masalan aniga waxaan qirsanahay inay waxyaalo badan oo kale igaga tegayaan carruurtaydii waxyaalo badan oo xaq ay u lahaayeen inaan helayn reerahaygii inaan helayn anigii naftaydii inaanay helihayn oo waxyaalihii adduunka baan ka hadlayaa laakiin haddii aad doonayso mabda ama risaalo ama ujeeddo inaad xaqiijiso naftaada inaad siiso way u hurto waxyaalo kaloo badan baad ku weynaysaa waa sax oo kaa dheelinaya iyagana waxaan weydiistaa ama xaasaska ha noqdaan ama ilmaha ha noqdaan cudurdaar iyo cafis waayo wakhtigii iyaga badan oo marar badan aan siin lahaa ayaa wuxuu ku baxayaa ummadda iyo dacwada oo laga yaabaa inuu ku baxo marka inay iga cafiyaan oo iga siiyaan laakiin adiguna markaasun baad wax ku keeni kartaa mabda aad xambaarsan tahay taasna waxaan isleeyahay waxyaalaha duruusta waxaan kaloo idiin sheegayaa oo warku soo khatimayaa haddaanu sheekh cali su-aale igula soo noqon dadkan soomaaliyeed ayaan anigu ku soo dhex koray intana ku soo leekaaday intana aan ku soo leekaaday waxaan aaminsanahay iyagana inaan bartay iyaguna ay barteen saas darteed waxaan idinka sheegayaa waxyaalahooda yacni xumaan badan baa jirta oo laga sheego maanta waxaan idiin sheegaa anigu yacni kalsoonida aan ku qabo dadka soomaaliyeed inay tahay midda aniga najaaxayga qaybta koowaad ah yacni haddii aan wax ku najaxay ama camal aan ku guulaystay bacdallaahi sabab waxa u ah kalsoonida anigu aan ku qabo dadkaas for example haddii aan meel imaado waddan weligay aanan u tegin ama gobol aanan weligay tegin horta waa wada maday gobollada soomaalida oo dhan law yacda laga soo bilaabo ilaa iyo raas kambooni gobol aanan tegin ama aanan dacwo ka gelin ama aanan wax ka qaban ma jiro tajribo fiican baan marka u leeyahay qabaa'ilkeeda dadkeeda magaalooyinkeeda waan bartay waana la noolaaday gudo iyo dibad waxaan idiin sheegayaa si guud ahaaneed dad fiican inay yihiin dad risaalo iyo adduun lagu furi karan inay yihiin hadday helaan hoggaankii wanaagsanaayo ku furi lahaa inay yihiin waxalaalay wixii la doonana shucuubta adduunka aan laga heli karin in laga helaayo oo miisaada hoggaan ay leeyihiin bani aadam weeyo ceebahooda kale waa leeyihin laakiin intaasna waa tajribada aniga aan kala soo baxay saas darteed
haddii aan reer kasta ama magaalo kasta ama gobol kasta dad Soomaaliyeed oo meel joogdaan u tago waxaan ogahay ama aan aaminsanahay oo ku kalsoonahay inaan ku najixi karo baan aaminsan waxaana la yiraahdaa de sida adigu dadka ka i'tiqaado ayay adigana ku noqdaan saasana Ilaahay subhanahu wa ta'ala iga siiyay ilaahayna waxaan ka baryayaa khayrkaas iyo maxabadaas inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo daa'imiyo shaacale haddaan waxba ku harin wiil yar inaad tahay ayaan markhaati halkan uga kacay maanta ugu yaraan 10 sano aan ka weynahay marka insha Allah ta'ala soo dhawo